الحمد لله، الشكر لله، والثناء لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، walaalayaal maanta waxaan soo qaadanaynaa aayadan qur-aanka kariimka nabiga sallallahu alayhi wasallam markay kusoo degtay fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaah wattabacu shahawaati fasawfa yalqawna ghayya. aayadan markay kusoo degtay oo tilmaamaysa in akhru zamaanka salaada lagu dheeri doono, nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo oynaayo ayuu wuxuu yidhaahday yaa jibriil hal tudayicu ummati salaa, jibriil oo ummaddeeda salaada miyay dayici doontaa? markaasuu dhan malakul jibriil wuxuu ugu jawaaba nacam haa, waya'tii aqwaamun min ummatika, waxaa imaan doona qoom ummadaada ka mid ah yadiicuuna diinahum kullahu, diinkooda oo dhan iibinayaan bicaradin min addunyaa qaliil, adduunya yar ku iibsanaayo. walaalayaal, salaada oo ilaahay subxaanahu watacaala nuurka ahayd oo min fowqi 7 samaawatin laga soo farag yeelay, oo maaragtay cibaadada iyo camalka alla loogu dhowaado waxa uu tan ugu wanaagsan ay ahayd salaada, oo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo xadiiska Abu Hurayra uu ku tilmaamay waxa ugu horeeyay inna awwala ma yuxaasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyaama min 'amalihi as-salaah. adoonku waxa ugu horeeyay camalkiisa laga xisaabinaa maalinta qiyaama salaada ay tahay. haddii ay wanaagsanaato camalkaada oo dhan wanaagsanaanayo, haddii ay fasahaadana camalkaada oo dhan fasahadayo. salaada ilaahay subxaanahu watacaala munkarka iyo fawaaxishta nooga reebayay, salaada oo waxa ugu dambeeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka dardaarmay as-salaah ay ahayd salaada oo wax walba adduunyo aakhira lagu helayo. salaada oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhihi jiray arixnaa bihaa yaa bilaal, inoogu raaxay. maanta waxaa la marooyaa in adduunyo laga doorto salaada nuurka ahayd oo badbaadada ahayd. qofkii ay salaadiisa taam noqotay, nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinta qiyaamo wuxuu dhahay faqad aflaxa wa anjax, wuu liibaanay, wuuna guulaystay, wanajaa, wuuna badbaadaya. qofka salaadiisa ee taam ahaan weysan maalinta qiyaamo, nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay faqad khaaba wa khasir, wuu khasaara, wuuna hoogay. waxaana laga soo kulminayaa fircoon iyo hamaan iyo qaaruun iyo ubay ibn khalaf, ummadan iyo ummadihii hore kuwooda ugu sharta badnaay. walaalayaal, salaada waxa waaye ballanka annaga iyo gaalada farqiga inoo dhexeeya waa salaada. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay alcahdu alladii baynana wa baynahum as-salaah, ballanka inoo dhexeeya annaga iyo gaalada waa salaada. faman tarakaha faqad kafar, qofkii ka taga wuu gaaloobay. isla suuradan dhammaadkeeda aayad ku jirto ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku leeyahay laa yamlikuuna shafaaca ilaa man ittakhada cinda araxmaani cahda. cahdigaas waxay saxaabada ku tilmaameen oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ku fasiray inay salaada tahay. marka salaadu waxa waaye ballanka adiga iyo ilaahay subxaanahu watacaala oo idinka dhexeeyo. salaadu waa waxa aakhira aad ku badbaadaysid. salaadu waa rukni min arkaan islaam oo shahaadateynka rukniga ku xiga waaye. marka walaalayaal, salaada iskala tartaarmaynaa in salaada la oogo. bal waxaan arkaysaa maanta waxyaabaha aayadan mucjizaadkeeda 1400 sano ka hor ilaahay subxaanahu watacaala sii sheegay in salaada lagu dheeli doono. maanta waxaa arkaysaa salaada oo adduunya aakhiraba ka khayr badneed oo wax walba lagu helayay, inuu qofki maaragtay oo habeenkii markuu hurdaayo uu ku leeyahay iga kicin salaada, aniga markaan kasoo kacan dukanaya. laakiin markuu shaqo aadayo ama balan oo gaalo leeyahay, taleefanka dhegta agteeda dhiganaya, wuu ku jimaysanayaa, qayladiisa dhagaha kaa bajinayso markuu balan leeyahay ama shaqo aadayo. laakiin salaada ma doonaya in loo kiciyo, markuu kasoo kaco dukanaya. salaadii heerkaas ay la gaartay. walaalayaal, haddii la dhihi lahaa masaajidka qofkii tagaa oo salaad walba uu dukado $20 la siinaya, 5 salaadood $100 maalintii, masaajidada waa la buuxin lahaa sida adduunya loo jecel yahay. laakiin lama ogo, biniaadanka ma ogo waxaa kasii khayr badan salaada adduunya aakhiraba ayadaa lagu hela. marka insha allahu tacaala walaalayaal, salaada ha lagu dadaalo. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. share dhaha, like dhaha, subscribe dhaha, ilaabina walaalayaal. assalaamu calaykum.